dilkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhawaan dhacay waxa uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay le'eg tahay ku dhex jiritaanka al-shabaab ee hay'adaha dawladda. Gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas'uuliyiin kale. Ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. haddaba imise qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryam iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda. Maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee leeg ayay ku yihiin hay'adaha dawladda iyo shacabkaba? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. kadib qaraxa uu ku dhiman doono gudoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hanaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada al-shabaab, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada dadkeennana dhibaataynaya. waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. haddaba intee ayay leegyihiin dadkaasi? dhibaato intee leeg ayaa ka iman karta? jenaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay al-shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay'adaha dawladda. dadku saddex nooc bay ahaayeen qolo oo aan u arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaala laga faa'iidaystay oo sidaas ku shaqaynaysay oo already kala galay fayl bay lahayd. waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistamkii loo mari lahaa in la soo qabto oo su'aalo la weydiiyo. cadaymankii markaa la haayeen alla hor qayb bay ahaayeen, qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqada ku socoto annagana aan noo soo sheegin lala soo xiriiray ilmahoodii lagu handaday. waa nimankan waxay dadka ku handadayaan qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku ka jira ayay ku handadayaan. qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaasoo kale loola soo xiriiray la cabsi geliyey laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato. ayagana qaab gaar ayaan ula tacaali jirnay. amnigooda si gaara maaragtay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaar ayaan amnigooda ula socon jirnay. dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaaya iyo dadkii handadaaya laga daba tago. unit gaar ayaa u samaysnaa arrintaas. dadka qaar aan interrogate garayno aan soo qabanay wasiire ayay chief security u ahaayeen qaarkood. chief security ama chief protocol ayay dad wasiira u ahaayeen, qaarkood dad kaloo madax ayay u ahaayeen. markii aan soo qabanay oo interrogate garanaynana waxaa dib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadkaan shaqeeyeen. dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka Banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka. hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah kadib markii nin munaasabadda ka dhex cadcaddaa la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka. jenaraal Tuur Yare ayaa gacanta ku qabtay kiiska. waxaan helnay warbixin ah in qof aad looga shakiyo dhaqdhaqaaqiisa dadka hawsha wada ka mid yahay. unitkeeni gaarka ahaa dadkii brotokoolka gobolka ay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa mataqaanii waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiyacasta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay sidaas uu noo sheegtay. si hoose ayay haddana koofiyacasta ugu tageen waxay dhaheen qofkaa mataqaanii maya gobolka uu ka mid yahay oo qolada gobolka oo brotokoolka ayuu ka mid yahay. marka kuwii gobolkana wuxuu isaga dhigay nin brotokoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofiyacasta si gaara ula shaqeeya ah. qoladii koofiyacasta brotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay. baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto dad kaloo relation la ahaa lasoo qabto baaritaanna la geliyo. dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saac dib u dhacdo. ninkaas ma qarax baa ku xirnaa? qarax kuma xirneen laakiin baaritaanadii iyo wixii waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fududay doono oo qofka oo qaraxa fududay doono uu ahaa lahaa mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii brotokoolka, mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada. waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya asigoo ka faa'iidaysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladdaa marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa? xafladdaas madaxda dalka ugu sarreysa ayaa imaan lahaa.
طبعا haddii koofiyad ay tagto meel waad fahmi karaysaa. waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladda. waa sax waay madaxweynaha tiga. khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weyn ee al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin. laakiin al-shabaab kuma tiirsano oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda, hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqaynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan. tusaale waxaan u soo qaadan karnaa cabdiweli maxamed macow, madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha muqdisho, oo bishii Febraayo ee 2016 fududeeyey qaraxii lagu soo rakibay kombiyuutarka ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines. haatan cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. 8 bishii Juulaay 2014 waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya. weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa xasan muxyidiin xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda. xasan muxyidiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey. bishii Agost ee 2014 waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah. sanadkii 2014 hay'adda NISA waxay qabatay sargaal sare oo ka tirsan hay'addaasi laguna magacaabo Kabtan Cabdisalaam Maxamed Xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan NISA uu gudbiyey ururka al-shabaab. xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya NISA, magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay'adda ah. saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay'adda NISA. sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im. macallin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka al-shabaab, isagoo goor dambena gacan saar la yeeshay Daacish, inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya. waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacan saar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda. infiltrationka maaragtay saddex qaab mataqaanaa waxa dowladda ku soo xiglaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa yacni waa qof mataqaanaa kow inay mataqaanaa infiltration sameeyaan qof intii soo dirsan dowladda uu soo xigalo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu shuruuc ka galaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan leeysiiyaan wuxuu rabaa aaminsanaa lacag maaragtay shaqadu qoran lacag kaga gadanaya. marka waxay sameyn jireen markii hore maaragtay sheegeen waxay aad u heli jireen maaragtay wax ajajiga aad u heli jireen horta waxay ku guul dareysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan. way soo rag badan ay soo direen maaragtay dowladda soo dhexgalay way jiraan way ku sabri waayeen. midkii la soo diray marka xawada ku joogo iska laabtaa meesha guul fiican way sheegeen waayeen recruitment-ga maaragtay sheegeen taasna way ku fashilmeen. laakiin waxay aad u heli jireen maaragtay ajajiga qof dowladda ka tirsan oo militariga ama meel kale joog inay waxa macluumaad ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaas oo kale aad u heli jiray marka hore. maxay uga bedeshaan lacag intee leeg? wala wax saas u badan maaha $200 wax saas $200 $300 wax saas siya. waxaa kaloo haddaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dowladda Soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. dalkeena dad tahay 4 sano ba isbedel weyn ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaan saxmaahay. waxaa 4 sano gudaheed ka dhacay intaas oo mar taliyaasha la bedelaa, intaas oo mar ayaa wasiirada la bedelaa, intaas oo mar ayaa maamulada hoose degmooyinka la bedelaa. marka horta waxa sahlaya inay dadkan ka soo dhex galaan waxa waaye maalin kastaba dadku subay la tacaamulayaan ayagoo ay khibradoodii wata oo isla dadkii faranta dadkii uu shaqeynaya arrimahaas ayaga 10 sano ilaa waxay shaqeynayaan ilaa waqti ku dhawaada ay shaqeynayaan. dadka ay ka shaqeynayaanna waa dad cusub oo amba sanadkii 3 mar 4 mar cusub amba 4 sano wada cusub. marka cusaydka iyo isbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya. maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan hayay faylal aad u muhiim oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiilku systemka ku dhex jira aan helin xogahooda oo aan dabagal ku haynin. faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyay kamid ah taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanaysa. waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo. waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalkii anigu waagaa feelasha ii hayay waa la dilay. wax lagu dilo maxay ma dadkii baa ogaaday oo feelashooda hayay si kalaa loo dilay waa arrin kaloo su-aasheeda mudan. dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhibir ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga. Generaal Tuuryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay al-shabaab oo isku dayay inuu isku qarxiyo. iska dhigaya marka nin waxaan
maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo adiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan oo geysta darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayeen qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaa nuuciisa oo badanna waa ku tuugayna meesha oo 4 ilaa 5 waan ku tuugay si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga noocaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xilsaaro ayuu aad isugu kala dhigay sargaalkii wuxuu soo gudbiyey ribood arrinkan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sarreysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka subaxda horeba subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay sargaalkii buu markaa la alamiitiyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalka uu keeno la sugayo sargaalkana waa sigi sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waaga amnigeedana aad u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyena waa la arkay marka sidaas ayuu ku qaxay meeshii uu ku qaxay waagaa wixii ka dambeeyena dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorshe gaara laga yeesho dadka is soo dhiibaya iyo dadka la aaminayo procedure baa laga dejiyey jilid baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay koobta marka in process adag la marsiiyo dadka is soo dhiibaya jenaraal cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacan saarka la leh ama hawlaha u fududeeya argagixisada. wallahi arrintaas horeyna madaxda xilligan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sare ah oo saameyn ku leh dowladda oo ama mas-uuliyaal la dhaho ama wax kalaba lagu sheegay dowladda saameyn ku leh waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan si fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarxin argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaan ku idhahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horgeynayo go-aankaas inay qaataan waa haddii ayaga go-aankaas qaadan karinna dhibkaan sidaanu u soconaa qof kale go-aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalanka argagixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay. haddii aan dib ugu laabto gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay. waxay ahayd aniga wax badan kama aqaan laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar nool ah oo u dooda xuquuqda noolayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qabo qaabkaasayna kusoo gashay gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka ilaah uu naxariisto wuxuu ahaa in aad dadka ula tacaatufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusan jeclayn in dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo inta aniga aan ogahay marka qaabkaasi ay kusoo gashay maadaama ay tahay gabar noolaa hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay komitiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo komitiyadeeda way ka dhiiban qaabdaaran jirtay marka lagu hadlay tuhun oo iga soo garay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fashay aragtiyaheeda maxaa kamid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato? wallahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayacin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayacin lasoo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaaran ay u yihiin waxyaabaha noocaasi gaadhi. al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo si wax looga qaban kara iyo arrimaha amniga ayadoo ka hadlayso weliga ma arag shirar amni ahna ayada shaqo kuma lahayn. waa gartay markii ugu horreysay aragta goormayd adiga? anigu waxaan gobolka kahor banaankaasaan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koranka arki jiray kuli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhawey dumarkii ka dhawey. weligaa marna ma la sheekaysato sheekamida dhex martay? maya weligeena sheekana ma dhex kolley dacdadan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigan ay wax ka bartaan maamulkana uu wax ka barto
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey Maryan oo loo yaqaanay Basiire Cabdi Maxamed iyo Hodan oo loo yaqaanay Degan su'aalaha kale isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka Banaadir sideedaba amniga gobolka Banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada Soomaaliya mise gobolka marka ugu horeysa ee mas'uuliyiinta dawladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwa kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa